kulankani oo iskugu yimaadeen ilaa 54 xisbi siyaasadeed oo ka dhisan dalalka Carabta iyo Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Marij ee dalka Marooka. xisbi siyaasadeedii ka qayb galay shirkani ayaa waxa kamid ahaa xisbiga Ahdi oo kamid ah xisbi siyaasadeed ka jira gudaha dalka Soomaaliya. Cabdallah Ahmed Ibrahim Afwaranle oo ka socday xisbiga Ahdi isla markaana ka hadlay kulankani ayaa sheegay inay muhiim tahay in si hoos loola socdo habsami u socodka doorashooyinka guud ee Soomaaliya ee 2020 iyo midda maamul goboleedka Jubbaland isagoona intaasi ku daray inuu ka mid yahay musharaxiinta u taagan xilka maamulka Jubbaland. magaalada Maraakish ee dalka Morocco waxaan kaga qayb galay shir caalami ah oo ay isugu yimaadeen in ka badan 50 xisbi oo Afrikaan iyo Carab ah. waxaan fursad u helay in aan qaabilo wufuudii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay kulankan muhiimka ah aniga oo uga faa'iideysanaya jaaniskan aan haysto oo ah mid aad muhiim u ah maadaama oon u taaganahay xilka musharaxnimada madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland. waxaa muhiim noqotay oo lagama maarmaan noqotay in aan si qoto dheer ugala hadlo dadkii ay khusaysay ama hay'adihii ay khusaysay ee ka soo qayb galay shirkaas. waxaa ka mid ahaa dadkii aan qaabilay hay'adaha deeq-bixiyayaasha xuquuqul insaanka iyo kuwa dimuqraadiyadda u dooda. qodobada aan ka wada hadalay waxaa ka mid ahaa sidii ay u ilaalin lahaayeen doorashooyinka ama ay isha ugu hayn lahaayeen doorashooyinka la filayo in ay Soomaaliya ka dhacdo 2020 iyo doorashada la filayo inay ka dhacdo sanadkan 2019 dawlad goboleedka Jubbaland si aysan u dhicin ku tagrifal awoodeed ama siyaasadeed oo doorashadaas khusaysa. sidoo kale Cabdallah Ahmed Ibrahim Afwaranle ayaa intaasi ku daray intuu shirkani socday inuu la kulmay mas'uuliyiin badan oo uu ka mid yahay duqa magaalada Pretoria ee caasimadda dalka Koonfur Afrika waxa uuna kala hadlay sidii loo yareyn lahaa dhibaatada lagu hayo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Koonfur Afrika. waxaan ka faa'iideystay waftiyadii yimid meeshan waxaana ka mid ahaa dadkii aan qaabilay duqa magaalada Pretoria ee wadanka South Africa oo aan kala hadlay in ay wax ka qabtaan dhibaatada lagu hayo dadka Soomaalida ah ee joogta Koonfur Afrika. waxaa kale oo sidoo kale qaabilay xubno ka socda dawladda Botswana, Mozambique iyo Tanzania oo dhammaantood kala hadalay isla arinta ku saabsan dhibaatada haysata ummadda Soomaaliyeed ee u sii socota South Africa. waxaa kale oo iyana mudnaana inaan aragnay wafdi heer sare oo ka socday jasiiradda Seychelles oo iyadana ka discuss gareynay oo aad uga wada hadalay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xirxiran Seychelles iyo dhibaatada lagu hayo in iyadana la sii daayo. marka taas waxaan rajaynaynaa ballanqaadyo sameeyeen inay wax badan ka qaban doonaan. gabagabadii kulankani ayaa waxaa la isku raacay oo si cad ah loo cambaareeyay kufsigii dhawaan gabar 12 jir ah oo lagu magacaabi jiray Caaisha loogu geystay magaalada Gaalkacyo. waxaan uga faa'iideystay oo Chinese la siiyay in aan ka hadlo xuquuqda dumarka ee wadanka Soomaaliya. waxaan farta ku fiiqnay arrimaha kufsashada ku soo noqnoqonaya dalka Soomaaliya gaar ahaan waxaan ummadda gaarsiinay dhibaatadii u dambeysay ee loo geystay gabadhii 12 jirka ahayd ee lagu kufsaday magaalada Gaalkacyo taas oo aan rajaynayno inay dawlad goboleedka Puntland si cadaalad ah u xukunto dawladda dhexe ee Soomaaliya ay isha ku hayso. waxaana la ballan qaaday oo shirkii la adabti gareeyay in arintaas gabadha isha lagu hayn doono waftiyana ay u soo diri doonaan in la socon doonaan arrimaha kufsashada.